السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن سيتهين ببردين الصحابة والله ظنها الحمد لله ونصون نبتكعني إذن كان سياسي لمدى إذن رجيريا ساك وحربينا ورابصة geedaha أنا ساك ورابصنايا حوغا يرو ماركتي sheekayran waa idin dordhigi lahaa marka geedahan waraabinayay saaka aragsiin xoogaa ayagoo iga qalqalan arkay waxaan rabaa inaan idinla wadaago wax yar oo maaragtay sheekayro hal meel ka dhageystay inaan idinla wadaago sheekadina idinma sheegayo laakiin waxyaalaha ka imaan kara ayaan idin sheegaa gabdhaha gabadha waxaan meel ka dhageystay gabar oo maaragtay ninkeeda la guursaday gabadha hadii ninkeeda la guursaday talada teeda kuma aysan soconin xoogaa waa ogtiin hadii gabadha la guursado way masayraysaa masayrkaas waxaa rabaa ninkan afar u banaane masayrkaas inuu ahaado mid aad kontaroosho oon adigana waxba kuu dhibin ilmaha waxba u dhibin qoyskaaga waxba u dhibin inaad ka dhigtaa loo baahan yahay maadaama ilaahay afar u baneeyay kulay arintaas waa arin naga weyn ilaahay baa maaragtay ku shaqale ilaahay baa arintaas maaragtay wixii uu afarta ugu baneeyay si in oo afar inuu ku filan yahay ilaahay u asteeyay ilaahay baa ku cilmi laakiin anaga inaan galgalna ma aha gabadhaas kale ilmihii ay dhalin lahaydna adigu ma dhalaysid waxaa rabaa inaan isdejinno oo gabadhii ninkeeda guursada aysan qoyskeeda dumin fikradda ay ku dhaqaaqaysaan waa inay ahaato fikrad ayada ka soo maahatay oo ayada qalbigeeda ka timid laakiin haddii aad doonto inaad qof inta tiraahdid heblaayoy saasaa ninkii yeelay saan yeelaa meeshaas waxaan maaragtay hadalkan ka dhageystay waxaa ku jiray inay gabar kale la tashatay tiri ninkii waa ila guursaday markuu Soomaaliya tegay na hadduu kula guursaday ma iska ceyrisoo guriga ka bixisid gurigii ka bixisay iga baxay tiri ma baxay walaal guriga waa wada leenahay sidaas sameyn ayadii ku celisay telefoon waxay tiri heblaay waa iga bixi diido bixi maayo na ugu yar booliska awal baa la heshiinay wax dhiba ma lahe booliska ugu yartay booliska waa ka bixiyeen waa ka tagay adigu meeshii dada soo galgal arrimihii markay soo galeen dadkii Soomaaliya joogay qaraabadii waalidkii gabadhii taladii waalidkii waa la isku soo raray haddana ninkii iyo gabadhii wiilkii gabadhii waa isku soo noqdeen meeshan waa ogtiin hadii mar problemka ku soo galo booliis baa u yeeratay inaadan arrintaas almiin inay ka adkaysatay lahayd kama aysa adkaysan waa soo ceshitay ninkii gurigii yimid gurigii markuu inuu soo guuro la arkay dabagaal lagu sameeyay idab daradan baa adiga ilmihiina waa laga kaxaystay marka waxa weeye walaalay arinta aku dhaqaaqaysa horta waa inay arin adiga ka soo maaxato tahay oo adiga maskaxdaada ka timid arinta adiga hadaysan adiga maskaxdaada ka imaanna jidkaas ma wadi kartid uu ka xirmaa qofku wax yar ka kaasho laakiin arinta ugu weyn waa ina adiga ay ka timaadaa marka adiga ka timaado haddana waxa taladooda qaadan kartaa inta badan qof ilaahay ka cabsanaya oo arin diin ku salleh iyo waalidkii ku dhalay iyo walaalahaaga intaas wixii ka shisheeya god sireeda ku qodayaan iska jir gabadha ilmaha dhalayna ma dhalay adiga ma dhalaysid wixii ayadu ay maaragtay cuni lahaydna ma cunaysid calafkeedana Allah qoray ninkaana waa nin idinka dhaxee waan idinku filan yahay diin ilaah ka badbadin ninku haduu adiga waxba ka biinayno ku egyahay naag inuu guursado naagtiisaas ha faragashan xogaa waa masayre laakiin masayrkaaga masayr xadadan waqti leh ha ahaado masayr maslaxada qaata ha ahaado masayr fikra oo dantiya maxaa ka burburi kara meeshan maxaase ku hirgeli kara maxaa dhib ku qabtaa ninkan muxuu ka biinaa ninku markuu kula guursado waa nin cabsanayo oo ku maslaxayo ku baryayo oo maaragtay walaalay sidaan iga noqoto ku dhahayo gabadhaas kale ayadana iimaanka hal geliyo gabdha ayaguna dambeeyo gabadhii hore daba dhigta waa jiraan laakiin sida ugu badan waa inay saas ahaataa waa kaasa khayran idin dhaafa insha Allah meel aan soo iskuulaan socdaa marka siimana dheereen kara waan idinku dheereey fiidiyowga saan malaynayo raalina ahaada waana idinkaasa faa'iideystaan idin leeyahay maskaxdiina ka shaqaysiya reerkiina ha burburino qurbaad joogtaan kaligaan ilmaha xambaarsan haddii gabar la furo waa ogtihiinoo habartay raacaan ilmaha inta badan
ninkuna waa isaga tagaa buuqaaga rabshadaada waa ka tagaa. marka sidaasaan idiin sheegaa inaad ka fikirtaan wax badan. kaligaan ilmaha waa lagu dhalaa inaadan dusha saaran, ninkaagana adigu aad sidaad ugu wanaagsanaan lahayd iyo sidaad mar walba haddii xitaa naa guursado aa isugu fiicnaan lahayd waa inaad ka shaqaysid.